bilowgii xanimaada Mareykanku saaray maraakiibta gelaysa iyo kuwa ka baxaya dekedaha dalka Iran warbaahinta u janjarta dhinaca xisbiga talada haya ee Mareykanku waxa ay xoojiyeen qiyaasta aqalka cad ee ahayd in talaabadan Iran ku kalifi doonto inay inta jilbaha jabsato aqbali doonto doonisaha Mareykanka ee heshiiska gaarista dagaalka maadaama Iran sicir barar xoogan dhaqaale xumo cunaqabataynadu sababeen iyo khasaaraha hantiyeed ee dagaalka ka soo gaaray horay ula dhibtoonaysay Washington waxa ay talaabadan u arkaysay dharbaaxada ugu dambaysa ee Tehran dhulka dhigi doonta si dhaqsolena u kalifi doonto inay Iiraaniyiintu inta gabaadka ka soo baxaan aqbalaan shuruudaha heshiiska doonista Mareykanka iyo Israel ku dhisan ee miiska yaal ha ahaatee xanibaad badeeda oo bilaabatay 3 maalmood ka hor waxay u muuqataa inaysan waafaqin rajadii xukuumadda Trump mid kale oo xaaladda howlgalkan sii cagirtay ayaa ah in maraakiibta sharciyeysan ay si caadi ah marinka uga gooshayaan muddada xanibaadda iyadoo xitaa lagu waramayo in maraakiib Iran leedahay iyo qaar Ruushka Shiinaha iyo Panama iska leeyihiin gacanka si nabdoon uga goosheen inaysan Iran wali ka soo yeerin qaylo la xiriirta xanibaadan iyo inaan Mareykanku beegsan karin maraakiibta shidaalka sida Ruushka iyo Shiinaha ee gacanka ka gooshaya waxa ay tusaysaa fashilka uu wajahayo qorshaha Mareykanka ee xanibaadda Hormuz dooc kale in qabanqaabada wada hadalladu socdaan oo Pakistan isku dayayso dhexdhexaadinta wajiga labaad ee wada xaajoodka Mareykanka iyo Iran la fahanteedu waxa ay door shariif ka qaadan kartaa inaan Washington waqtigu u hiilin oo heshiis la gaaro ka hor intaan xanibaadda Mareykanku saameyn taban ku yeelan dhaqaalaha Iran ee horeyba u cakirnaa dhinaca kale Ruushka ayaa ka digay in si lamid ah kuwii hore Mareykanku dhaqdhaqaaqyadiisa diblomaasiyadeed ee wada hadallada Iran u adeegsanayo jahwareerin lagu daboolayo howlgal ballaaran oo dhanka dhulka ah oo Washington qorsheynayso inay Iran ku gasho golaha amniga Ruushka ayaa shiray Isniintii yeesheen ka soo saaray digniin ah in diblomaasiyadda Mareykanku boorisku qaris kale noqon karto waxaana tuhunka Ruushka xoojinaya ciidamada tirobeelka ah ee Mareykanku weli bariga dhexe ku daldalayo kuwa oo haatan qiyaasuhu qayb ahaan sheegayaan in tiradoodu 100,000 oo askari ku dhowdahay